وحوي حالة كجورة أيو صدق سنة ودم بس اللي وجري مركي حكم كلاجة قاضي كوحدي معنجة جاهية TPLF حالة داس يقرب مرحلة بمريسي ما أنت وحي مريسا قعن كهذا أي وضان يو كنتي مركي الدولة أي كل واقضي حبة جوجين هل دناعة يو تاو فسرتي إلى إذا ما دي شبيون كجوليستين وأنا موقتا إلى هذا وير بلارن ويران لبديجان وقت صندلك أي كوسو قادين وحوجد هيسان isku caabin adag yaa ka hortagtay TPLF tabar ay maanta dalka ku dumiso iyo mid aad sabab ku qabato toona malaha aba yaraatee السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدنيال يا مروين مeel kasta oo iga dheehanaysaan waan idin salaamay bulshaweynta Soomaaliyeed fariin digniin ka socota Maxamed Qorxi Mustafa Cagtar ku socota marka koobaad Mustafa waan ku salaamay walaalle saad la socotayba TPLF muddo ku dhow 30 sano ee dalkeena gacanta ku haysay eheladeena iyo dalkaba waxa xasuuqaya ayaga ahaayeen waxayna ku qabsadeen hadii la kuuriya barya ma ahayn xoog bay ku qabsadeen balse waxaan rabaa inaan ku weydiiyo Mustafa ciidan fara badan oo tababartay oo meeshan ka muuqda ciidankan oo ku tababaraysid hadii la kuuriya aad ugu hiilinaysid axmaaro ku kala sokaysanaysid Tigray iyo axmaaro maxaa ku fahmo oo ka haysataa hadii la kuuriya axmaaro in ay ii sheegay xorriyad ku siinayaan ehelkaagana ay tixgelinayaan xaqna dhowrayaan waxaa kale oo ii sheegay rabaa inaan ku weydiiyo maxay kugu kala sokomareen axmaaro iyo Tigray ayadana waa su'aal meesha ku jirta maxaa danaho inoogu jirta inaan u kala safano Ethiopia inaan u kala safano maxaa danaho inoogu jirta waa su'aal loo baahan yahay in la weydiiyo Mustafa Maxamed Cumar farintan in la gaarsiiyo aan jeclahay insha Allah ta'ala ku soo Mustafa ugu badan waa propaganda iyada iyo dadka inay iyaga la shaqeysan jireen nooc doon aan noqdaanay ilaa waxay ahaayeen koox muddo dheer deegaanka gacan kula jirtay deegaankeena iyo deegaamada kale marka waxa weeye dhaqdhaqaaqyo fara badan oo propaganda halkaas la qabsaday halkaas la maraya kana jirta baa jira laakiin xaaladda halka ka jirta ma aha xaalad inaga khatar gaar ah inagu ah mana aha okay Mustafa markaad leedahay khatar inagu ma aha xaaladda halka ka jirta shalay waxay ka soo duuleen halka ay hadda joogaan waxayna ku soo duuleen hadii la kuureeyay shacabka Ethiopia oo idil waxay gacanta ku dhigeen Ethiopia oo idil si gaar ah waxay hadii la kuureeyay u leen jireen 30 sanaba ay la dagaalamayeen ehelka aad la dhalatay iyo kaan la dhashay oo waynu isognahay waxaynu ka soo jeednaa Soomaali State ama Ogaadeniya dalka la yiraahdo in ka soo jeednaa waxa la socotaa oo la socdaan ogahay Faisal Cagtar waxa diray inay Tigray ahaayeen kana soo duulay halka ay hadda ka soo duureen oo ii sheegay geeridiis aad iyo aad tiraanya ay igu beerayso ma la oran karaa waad ilowday eheladeen xasuuqi loo geystay waad ilowday ma la oran karaa ma la oran karaa Tigray intii ka horeysay wixii inuu gumaysan hayay cid ay ahaayeen inaad ilowday oo ii sheegay aad ilowsan tahay ma la oran karaa ma ka fiirsatay in ay axmaare inuu gumaysan jirtay masa maba ogidba inay axmaare inuu gumaysan jirtay maxay inoo kala sokayaan laakiin labadooduba aniga hadii la ku rooyaa oo dajiid iyo qaad wasla gurigeenti laakiin maxay inoo kala sokayaan Mustafa su'aashaas inaan ku weydiiyo aad baan u jeclaan lahaa la gaarsiiyana mid nidaamka hadda jira inay dumiso inay ku guuleysato la rajaynayo sida daraadeed in si degan shaqooyinkoodii loo wato xilkas la noqdo xuquuqda insaanka la ilaaliyo nidaamka u adeega shacabka inaad u adeegaysaan aad ogaataan qiimaha aad bixinaysaan meel walba oo joogtaan in dawladdu ay idin ogtahay aad ogaataan ayaa la idinka rabaa waxaan aad iyo aad ugu kalsoonahay in caqabadaha xagga amniga nala soo dirsan aan ka gudbi doono muddo aan fogeyn doorashooyinkiina dhawaan si fiican inoogu dhici doonaan geedi socodka guud ee dalka ka jira na si wanaagsan aan ula socon doono kaalinta nagaga Mustafa kii ka horeeyay Cabdi Ilay buu ahaa in adeerkaabuun ahaa waan iskaga kay aqoon badan tihiin labadiina aniga iyo adigu labadiina iskaga kay saaxiib dhawaa oo anigu Cabdi Ilay aqoon uma lahayn waxaad nala socotaa Cabdi Ilay inuu sidan aad leedahay iyo si ka daran ba inuu oran jiray waliba oran jiray Ilaahay Ethiopia naga dhigay baan ku maadinaa ma la oran karaa erayada maanta ka soo baxaya waa erayadii Cabdi Ilay ee oran jiray Ilaahay Ethiopia naga dhigan ku maadinaa eraya la mid ah weeye ma la oran karaa Mustafa
su-aashaas waa mid adiga ku hortaalla bulshada soomaaliyeed ay kaa sugayso ku soo cabal hadda mustafa aadan aan ka gudan doono deganaanshaha siyaasadeed ee deegaanka ka jira 3 sano u dambeysay iyo midnimada hogaamineed ee la muujinaya la sii xoojin doono waxyaalo badan oo imtixaan gelinaya arrimahaas way iska imanayaan laakiin in laga gudbayaan aaminsanahay waxaan ugu baaqaynaa shacabkana xilligan in midnimo Soomaaliyeed oo adag la abuuro dhammaan ururada mucaaradka ururada bulshada odayaasha dhaqameedka dhammaantood waxaa laga rabaa in ay ka dhigtaan ajandahooda sidii deegaankeenu deegaan nabdoon oo horumar iyo nolol ka jiro uu noqon lahaa laga rabaa waxyaalaha inta ka sokeeya ee tartanada siyaasadahana fagaarayaashida in la yimaado qadiyadaha guud ee wada quseeya ee Soomaaliyeedna inaan isku meel ka istaagno ayaa la inaga rabaa ما حما مصطفى walaalkay ma xuma erayga aad hadda tiri macnaha qadiyada Soomaaliyeed meel laga wada istaago waa eray aan soo dhaweeyna waan kugu taageersanahay laakiin waxaan kaaga soo horjeedaa qowda maqashay waxna u qaban ma la oran karaa markaad sidaa leedahay madaxweyne adaa ka maamulka meesha ka jira hadday noqoto ururka ONLF xataa madaxweyne adaa ka ha noqdaan ii sheegay xisbi mucaarada oo ii sheegay dira ku rooyahay wadani ah noqdaan oo hadaf kale ha haystaan laakiin haddana adaa madaxweyne ka ah oo qaadiga meesha adaa ka ah ma la socotaa city dagaaladii ii sheegay dira ku rooyahay garbaciise lagu xasuuqay shacabkoodii in uu ku yiri abi axmed uma tacsiyin kartid balse maxaa diiday inaad u dacsiisid haddii macnaha ay taas u jirto oo qof wax qaban kara aad tahay walaalkay oodan u baahnayn haddii ku rooyahay gurmad oo aan lagu haysanin ma la odhan karaa ii sheegay haddii ku rooyahay waxaad ugu tacsiyin weyday shacabkii city ama ii sheegay shacabkii haddii ku rooyahay garbaciise lagu xasuuqay agoontii ciyaalkii adiga iyo aadan faarax iyo inashide intaba in waxayna shacabka Soomaaliyeed ogeyn baad ogtihiin soo lama oran karo bal hadda ku soo mustafa qadiyadaha Soomaalida khuseeya ee deegaanaha inay khuseeyaan inay noqdaan inay loo arko fursado lagu fashiliyo hogaaminta oo ururada asxaabaha mucaaradkii ay u arkaan fursad muxuu ahay ay dano kooban ku gaari karaan oo dhaqan soo jireena looma baahna waxa loo baahan yahay sida deegaanada kaleba ay ururadooda siyaasadeed asxaabta siyaasadeed isaga kaashadaan arrimaha la xiriira masiirkooda guud in dhaqan noocaasi uu yimaado arrimaha halkaas aan kaga hadlayo cid aan ka hadlayo way garanaysaan goldolooyin baa jira waxa jira in shacabkana lagu abaabulo wax loo sheego haddana hoos ahaan wixii wax kullid ah laga shaqeeyo shacabka ma la difaaco dhinac laga yiraahdo dhinac kalena propaganda maxaa loo difaacayaa la dhexgeliyo labadaba mustafa hadalka aad leedahay haddii aan in yar kaa dhaho adigoo raalli ah walaalkay madaxweyne baa lagu yidhaahdaa oo madaxweyne macnaha kolley bulshadu ay kuu taqaanaa haddaan kugu ixtiraamo madaxweynnimadkaaga ama ii sheegay aqoonta aad leedahay su-aasha aad leedahay mustafa ma noo sheegi kartaa adigu haddii aan kuu rooyahay waxa aad u og tahay bulshada Soomaaliyeed eed ku difaaci kartid haddaadan marba ay sheegay kuri aadan oran karin laakiin aadan oran karin inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun qof geeriyooday oo arwaaxda bini'aadnimadkaaba ii sheegay qofka adoon garanayn loogu tacsiiyay dadka mas'uulka ka ah intii la xasuuqay aadan oran karin bulshada Soomaaliyeed waxaad la soo hortaagan tahay ama ciidamada aad ugu sheekeynaysid soo lama oran karo un hadaladii iska riyaaq ahaa ee ii sheegay meel la'aanta ahaa weeye ma la oran karaa taas madaxweyne adigoo raalli ah oo hadal aad iska tiri un weeye uma baahna dalka ogaadeenaya hadal laakiin wuxuu u baahan yahay hoo itus buu u baahan yahay itaasi oo itus buu u baahan yahay shacabkanu way ka soo daareen hadal ilaahay baa Itoobiya naga soo dhigay way ka soo daareen hadal iyo isha hadii waan barwaaqownay iyo biyo la shubo way ka soo daareen program aan jirin iyo wadooyin aan jirin oo la sheego way ka soo daareen baan iyo isha hadii ku reey program aan waxba ka jirin way ka soo daareen ma la oran karaa shacabku maanta hadii ku reey waxyaalaha aad ka hadlaysid iyo wax ka shisheeyay way fahansan yihiin bal hadda ku soo in isku hal koox ay wado ayaa suurtagal oo aragna maalin walba siyaasadaha noocaas ah siyaasado qurux badan maaha kuwa wanaagsan maaha kuwa masiirka ummadda Soomaaliyeed iyo midnimada adkeynaya maaha waxa in laga waantooba ayaa loo baahan yahay okay haddii aan taa ka waantooba madaxweyne adaa madaxweyne ah waxaan aaminsanahay ururka ONLF haddii aad hadafkooda iyo Soomaalinimadku uu ka dhab yahay oo aaminsan tahay inay macnaha kugu daba fayli lahaayeen ragga kaadiriinta ee wadana waa adeerada waana ehelka waana dad Soomaaliyeed oo isku meel ka soo jeedaan isku gobolada aad degan tihiin ma la oran karaa wax gees ah adiga ku dabsoon oo ii sheegay wax gees ah wadataa
hadday ayagu leeyihiin soomaalinimaana deeqa adiguna aad leedahay soomaalinimaana deeqa yaasa ii sheegay haddii ilaa kuu roon yahayay khaladka wada ma la odhan karaa wax gees ah kuu dabsoon oo etoobiya ku jarbiyeen ahoo axmaaro aynu aadna ah tigreena col baynu la nahay sida macnaha cabdi uu odhan jiray kii kaa horreeyeen adeerkaa uu odhan jiray tigree aynu aadno axmaarana aan la dagaalanno dhargidiyayna soo noqonin macnaha erayadaas bal adigu qiyaas aragti ahaan intaad dib ugu noqotid erayadii ninkii kaa horreeyey ee meesha haystay bal adigu dhegayso oo waxaad hadda leedahay eed maanta dadka bulshada aad la hortaagan tahay eed ku abaabulaysid iyo ina adeerkaagii kaa horreeyey eed iska aad isu taqaaneen eed isku ayniga ahaydeen wuxuu lahaa bal hadda dhegayso adigu shaksi ahaan laakiin markaad dhegaysatid maxaa kaaga soo baxa shaksi ahaan fikirkaaga adi ahaan maxaa kaaga soo baxa ku soco ummad bisil oo muxuu ahaayey deegaankeedii si midnimada u difaacanaysa in la noqdaa loo baahan yahay intaasoo sannadood oo ka sheekayno waa nala dhibayey waa nala haystay dhibaataa nagu dhacdila lahaa kaalinta ugu weyn ee wax walboo dhibaato soomaalida soo gaadhay waxaa dhabarka u ridanaya dadka soomaaliyeed ama hogaaminta soomaaliyeed iyo odayaasheeda ha noqdaan ama shacabka guudba ha noqdaan sababtu waxaa weeye midnimo la'aanta waxay ka imanaysay jahli tafaraaruq danaysi qabyaalad bay ka imanaysay wixiina way sii jiraan marka waxaa in laga gudbaa loo baahan yahay asxaab siyaasadeed oo midoobaysaa ma jirto tartan baa ka dhexeeya inta badan waxaa la isku khaldaa midnimada xisbiyada iyo midnimada guud ee mabaadi'da asaasiga ee ummaddu leedahay lagu midoobayo marka tartanka ka dhexeeya asxaabta tartamaysa taasi waa wax caadi oo dad ayna ka jirin ma jirto loomana fasiran karo inay macnaheedu tahay fatafaraarku inuu jiro okay madaxweyne mustafa cagjar ma waxaad leedahay marka haddii la kore tigree baa jahriina geliyey axmaarana way naga saaraysaa macnaha erayada aad leedahay mataasa ee bulshada soomaaliyeed macnaha aad u dheehaysid macnaha markaad sidaa aad leedahay waa sidaan hadda anigu fahmay haddaan khaldanayn ka raalli aho haddaan hadalkaaga leexiyo ood u malaysana leexiyo laakiin si kastaba ha noqoto erayada aad hadda ku hadlaysid ma axmaara ina dharjinaysa tigreena haddii la kuurey jahri bayna geliyey balse ii sheegay naarun meel qabow ma leedahay su-aasha haddaan su-aal kaa weydiiyo naar ka tag naar u tag ma kala qabowdahay labada naarood axmaaro waynu la soconnaa dhaqankoodii in ii sheegay haddii la kuurooy yahay ka baxay ay ka dhacday 77kii dowladda soomaaliya ay la dagaalantay eheladeen ay ku xasuuqday haddii la kuurooy gondor iyo goojaan minjaha ay kaga xidhay la kufsaday wax kastaba rag iyo dumarba la kufsaday la kala qaxay la iswaayey marka soo lama odhan karo kadar oo dibi dhal macnaha markaad leedahay haddii la kuurooy axmaara ina barwaaqeynaysaa oo eebebe baan wataa tigreena jahri buyna geliyey balse ii sheegay haddii aan su-aal ku weydiiyo federaaleysi ninka wada iyo ka aandhinadka wada koodee ii sheegay haddii la kuu roon yahay arrintoodu khafiifsan tahay adaan kuu daynhayaa middaas qadiyad waladkan isbeesku u ballaaran yahay laakiin waxaa la rabaa inay jiraan waxyaala muqadasaada oo masiirka guud ee ummadda laga midaysan yahay sida difaaca shacabka sida midnimada soomaalida wixii wiiqaya in laga ilaaliyo magacyadayna kala qaybinaya in laga daayo waxyaalaha noocaasi waa waxyaala u baahan in laga fiirsado aad iyo aad waan ugu faraxsanahay mar kale inaan maanta idinla joogo waxaan idin rajaynayaa tababarkii aad qaadateen inaad noqotaan kuwa okay madaxweyne haddii wax la kala qaybinahayo oo wax la kala waxaynahayo miyaadan adigu ii sheegay haddii la kuu roon yahay aadan ahayn qofkii ugu nasiibka badnaa intii madaxweyne soo maraysay madaxweynayaashii kaa horreeyey 11 madaxweyne ilaa 12 madaxweyne weeye markii dhicis lagu daro kii ugu nasiib badnaa baa tahay kii uguna nasiib xumaa baa tahay miyaan la odhan karin wacyigan maanta kala guurka Itoobiya ay kala guurayso in shacab jabay oo Itoobiyaan ah oo la xasuuqay oo ii sheegay godkoodii biyo ugu galeen in aad ii sheegay shacabka Soomaaliyeed ee weligoodba Itoobiya dhan ay iskugu tagtay Tigray iyo Axmaaraba ee ii sheegay ahayd Axmaara intii naga soo daashay oo dadkeena ii sheegay laysay oo ii sheegay hadii la kuu rooyay ay jigjiga waxaan ogaa iyo garab casa waxaan ogaa ay ku samaysay taaladii Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ay rabaan adoo jooga waliba inay xadaan miyeenan ahayn inaad maanta aad u sacbatumayso oo leedahay wayna barwaaqeynayaan EBB baanu ku wadnaa laakiin team 30 sano inuu gubaysanaysay inaad aragtid tii ka sii horreysay inaadan arag maxay kugu kala sokeeyaan oo la oran karaa marka aad noo sheegi kartaa oo feerma ah oo shacabka Soomaaliyeed kalsooni ah oo ka qaadan karaan oo Axmaara ay ugu barwaaqeen Axmaaradu si jiidaysa dadka shacabka Soomaaliyeed laakiin Axmaara maxay aad feerma ku faham oo ka haysataa oo Axmaara inay gaarsiin kartaa su'aalahaas waa su'aalo adiga ku yaala bulshada Soomaaliyeed ay kulay ay ka suwayso
inay macnaha ku weydiiso hase ahaatee ee waxaan jeclahay qof kastoo Soomaali ah inuu yahay muwaadin jecel yahay nabadgelyada amniga inuu qof Soomaali oo kale la xeero in raalli ka ahayn walow kaana adigana aadan raalli ka ahayn balse markaas aan kula hadlahayo inaan adiga laftigaaga difaac iyo heegan ku ahay askariga aad maanta hortaagan tahay mid ka daran oo weligiiba soo jiray inaan ahay laftigayga asagana aan la mid ahay garabkiisana aan ahay ma la socotaa mise ma dareensan tahay waxaa loo baahan yahay bulshada Soomaaliyeed ee dheehanaysa daafaha dunida Mustafa Maxamed Cumar waa madaxweynaha maamulka Somali State in la gaarsiiyo fariintaydan baaqaygan ka socota ee ah su'aalaha uu ka hadlahayo mikrofoonka uu haysto kuwii aan uga jawaabahayay ee ahaa madaxweyne haddaad madaxweyne tahay bulshada Soomaaliyeed waxyaalaha ay tabanayso ee cad ee leesgees marin karin ee la yeelsan karin miyaan haboonin maanta inay macnaha ay kala qayb qaataan oo lagu toosiyo adiga laftigaaga in lagu saxo waxaan ku oran lahaa Mustafa ninka ugu nasiib badan baa tahay sidaad ku socotana nasiib darrayna kugu dhacdaan aad uga baqi aad iyo aad nasiib darradaaduna waa nasiib darradayda waa nasiib darra aniga ii soo hoyatay ta kugu dhacda haddii aad guulaysatana waan guulaystay oo waxay tahay hadafka aad wadid haddii aad wadid waad guul darraysanaysaa haddii laakiin shacabka Soomaaliyeed aad soo noqotid oo mucaarad iyo maxaafad basu keentid oo aayaha iyo future-ka aad ka talisid waan guulaystay inaad imaamushana raalli iyo nus baan ku ahay laakiin sida aad hadda ku socotid kuma ihi raalli mana adeecsani madaxweyne igana raalli ahaw bulshada Soomaaliyeedna wax anfaca oo deeqa bay ka sugaysaa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa maxamed qurxay oo leh aad iyo aad baan salaamaya gaarsiiya walaalkay